السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa soo booqanay xaruntan khayriga ah oo dadka lagu samafalo oo in badan shaqeynaysay wadankana wax badan iyo carruur badan wax soo qabatay. waxaa farxad noo ah annagoo shirkadda Samtel ah inaan carruurtaani maanta inta u imaano kala qayb qaadano farxadooda oo ciidda oo soo dhow inaan dharkii ciidda aan ku soo tabaracno annagoo ka jawaabayno baaqa madaxda shirkadda Samtel iyo shaqaalaha shirkadaba. waxaa maanta soo gaarsiinay dhalinyarada iyo carruurta xarunta agoonta iyo danyarta ee Dr. Katare waxay gacanta ku hayaan in ka badan 300 oo carruur ah oo wiilal iyo gabdho iskugu jiraan. intaasna sanadkan 2020ka waxaa ballan qaaday dharkooda ciidda 300 ka badan. waxaa ballan qaaday shirkadda isgaarsiinta Samtel dadkan tiradaas la eg oo dhalinyarada tirada badan oo carruurtan yarka u badan dharkii ciidda iyo farxadda ay uga qayb qaadanayeen bulshada qaybaheeda kala duwan. waxaan marka koowaad u mahadcelinayaa maamulka xarunta oo arrinkan farxiyo oo mar kastaba arrinkan u taagan carruurtaani habeentooda iyo qaabeentooda iyo mar walba mas'uuliyad saa'id iska saareen. waxaan leenahay miisaankiina xasanaadka la nii saaro. bismillaahi raxmaani raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Samtel oo xiriir nala soo sameysay. wallaahi ma iloobi karo maalintii ugu horeysay ee Axmed soo wacay aad baan ugu farxay annagoo yaaban oo leenahay bal maxaad sameysaan ciyaalkan masaakiinta maxaad siisaan dhar ciid xageed uga keentaan. Axmed ay soo waxay ilaahay waa ogyahay farxadayda say aheeday ciyaalka markaan u imidana wallaahi iyagana farxadooda waa la yaabay. waxaan u mahadcelinaynaa annagoo ah maamulka xarunta dhaqan celinta iyo danyarta ee Dr. Katare Samtel ayaan u mahadcelinaynaa. aaday u mahadsan yihiin ma ilaabi doono baal dahabay nooga jiraan run ahaantii annaga. naji maanta aad u farax shirkadda Samtel anagoo dheena dhar ciid intee noo keena oo maanta noo keena aad u faraxsanahay in kastoo meel kastaba joogaan iyo Samtel inay ku iyo asxaabadooda ba inay saas noqdaan ilaahay u kaso. waxaan u maalnaqayaa dhar ciidan oo keeneen anaga maamooyinkeena oo dhaayaan inteeba dhar ciid oo nala keenaya maanta noo keeneen aad u faraxsanahay. السلام عليكم ورحمة الله. مدحي الله يوسف عبد الله محمد وعمانت ومادينا شركة Samtel وعاونك مانتا وبعدينا نبتقلينا حديث وركيشة مانتا ساعانتنا وفلان ونكم نقودي كرنا إن شاء الله مرة يقودونا مانتا نينك ماشي بلا هاي ونبكي رفات وكسوب هاي مانتا الحمد لله وصومنا هاي خير ورجينا يا هيا محاضرين مانتا هويو محاضرين مانتا dadka xarunta Samtel farxadooda nabad geliyaan oo ciida dhar ciidaad ay noo keeneen hadal dhar ciidaad bay noo keeneen oo maasantiin mana idin iloobi doono intii mar dambe ajri xasanaad la idin siiyo ajri xasanaad la idin siiyo.